صلى الله عليه وسلم maantay taariikhdu tahay 11 bishii saddexaad 2017 waxaan halkan ku qabanayaa oo dhaleecaynaya dideefeynayana waxyaalahan la maqlayo ee mar horena sanad ka hor la soo hadal qaaday ee ilaahay rasuulkiisu toona aanay ogolayn إلى لي هاي بنوك رباوية وربيدة بحنايا أيا بارلمان كشاكن سومالي لان هريال وحن لاي هاي ومدن إنسان كامركي إلى هاي أبورتي اسكو فلانشيو إيا مامول أي اسمامول الكران ملحا مركو إلى هاي وقادين يعني اسمامول الكران وحسور راعيي منهج إيا كتاب سماوية oo ay umadu ku hagmato amba hagaba kitaabka ilaahay waxna uu ogol yahay waxna uu diidaya waxyaalaha uu diidaya number 1 waxa ka ah arrinka maanta la leeyahay baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland buu horyaala taa waxaan leeyahay ninka gacanta geliya arrinka ee kamid ah nimanka baarlamaanka isku sheegaya waxaad ogaataa in ilaahay ku cilaamiyay dagaal aayad ilaahay baa sheegaysa musiibooyinkan iyo abaarahan ilaahay haynaga dulqaaday intaanu bari lahayn aynu oran ilaahu rabbu naga dulqaad ayay waxaynu leenahay kuwii madaxda isku sheegaya ay leeyinay dalab ilaahay u dirayaan ilaahu ciqaabkaaga nagu soo laba laab oo nagu soo saddex laab oo nagu soo afar laab ilaahay baan taana ka magan gal arrinka isaga ilaahay baan ka magan galnay ilaahay waadna arkaysaa bari baan ku nahay arrinka haddaan shacbiga reer Soomaaliland arrinka madaxdeedaasi wadwaday hor yaala bari baan ka nahay ninka maanta leh khibaawigii baan ka hadlaynaayo waxaad la mid tahay nin yiri ayga hilibkiisu ma xaraam baa mise waa xalaal noocaasad culimada Soomaaliland waxaan leeyahay looma baahna maanta oo kale looma baahna in microphone laga hadlo amba khudbada jumcaha qura lagu soo qaato is urursada dalkan iyo dadkan cid baa loo igmaday oo ka mas'uula cidda mubaasharatan u taga waxaan inaan ilaahay rasuulkiisu toona ogolayn u sheega tusa aayada ilaahay ku dul akhriya takala ilaaha casa wajalla waxa ka baryaana ilaahay abaarey naga soo jebiyo ilaaha casa wajalla waxaan ka baryaana in ilaahay abaarey naga soo jebiyo ilaaha sanu diin la insha Allah ta'ala wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh